dadweyne aad u tiro badan oo ka kala yimi xaafadaha kala duwan ee magaalada Boosaaso wata calamo iyo caleemo qoyan ayaa ku soo dhaweeyay magaalada wafdi ballaaran oo horkacayo madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole. wafdigani ayaa saaka ka soo kici timay degmada Carmo ee gobolka Bari halkaas oo maalinimadii shalay soo gaaray wafdiga uu madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole uu horkacayo. wafdiga ayaa loo galbiyay dhanka iyo madaxtooyada Boosaaso waxaana halkaasi kula hadlay saxaafadda madaxweynaha oo sheegay in si weyn ugu faraxsan yahay soo dhaweynta loogu sameeyay gudaha Boosaaso. waxaana madaxweynuhu ka hadlay arrimo badan oo ku aadan xaaladda dalka Soomaaliya iyo tan deegaanada Puntland. la socdeen wuxuu ahaa nidaamka aan ku ballan qaadnay xisaabta badan in dalka laga hirgeliyo hadda muddo hal sano iyo bar laba sano muddo ku dhow socday markii dastuurka dhinac socday haddana xisaabta furitaankeedii lagu jiro xisbiga horeeyay xukuumadana mar hore lagu dhawaaqay kuwii kale ay soo dhowdhowyihiin barnaamijkaas iyo nabadda adkeynteeda cadowgu waa badan yahay mid siyaasadeed baa jira midaan nololba ku ogolayn baa jira waxaa jira mid aan muuqan oo wax tashiil ah oo shakhsiyaad yaryar oo aan caaqibo mujtamacay magactoona ku lahayn ay wadaan qaarkood ka dhaca sidii arrintii dhaweyd maanta jimcihiisa soo dhaafay qaran ka dhacdo kale oo idaaraha qaarkood iyo meediya qaarkood ay buunbuuniyeen iyagoo weli qaba colaad qabiil rag ay colaad qabiil qaba. Xuseen Xasan Xuseen Xuska Somali Public TV Boosaaso.